قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. casharkeena maanta wuxuu ka bilaabanayaa haddii ilaahay idmo aayadda 67 oo min suurati israa ka mid ah. ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, waidaa masakum hadduu idin taabto bini aadanow adduru dhib hadduu idin taabto fi lbaxri badda dhexdeeda hadduu dhib idinku taabto, dalla wuu lumay man ciddii tadcuuna aada baryayseen ilaa iyaahu ilaahay marka laga reebo subxaanahu wa tacaala. falamaa najaakum kolkaanu idin badbaadinay ila albari biriga iyo dhulka markaan idin badbaadinay, acradtum waad jeesateen, towxiidkii baad ka jeesateen. wa kaana alinsaanu bini aadamkuna wuxuu ahaaday kafuuran mid kufrin badan ee dafiritaan badan nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala. aayaddani saan tilmaanay casharkii hore waxay xiriir la leedahay aayaddii ugu dambeeyday casharkii hore ugu dambeysay. waxaan loo soo qaaday waddo yacni nicmada ilaahay intana la xusuusiyey subxaanahu wa tacaala badaha ku saabsan ayaa bini aadamka khaladka ay sameeyaan in badan oo kamidihii ayay aayaddu maaragtay ay bilowday. ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. إلى مركو يري سبحانه وتعالى ربينه ومدك إذن سخري دومها إيو مراكيب تبدا إذكو سخري يسجي كان سلسلية ويان الفلك دومها في البحر بدا دحيدا وحانكو سخري مراكيب تا إيو دومها بدا لتبتغوا من فضله إلهي برواقه سنة دونتين inay isu gooshaan oo isu gudbaan safaradu iyo ganacsiga caalamiga adduunka dhan ayaa badaha inay isku xiraan baa loogu talagalay. badda laftigeeda in laga faa'iidaysto oo barwaaqada ilaahay iyo khayraadka ilaahay subxaanahu wa tacaala gudaheeda uu ku beeray, ayada laftigeeda in laga faa'iidaystaa ilaahay subxaanahu wa tacaala badaha inoogu jalla wacala inoogu abuuray. saa darteed baa ilaahay ku cileeyey inay naxariista ilaahay keenta arrinka ah, innahu kaana bikum raxiima. ilaah wuxuu ahaaday adinka kii idin naxariis badan. saas ayadoo ilaahay nicmadaas u galay basharka oo awoodda keliga uu leeyahay subxaanahu wa tacaala, ayaa bini aadamku haddana ilaahay nicmadiisa ku kufrinayaanoo cidaan asaga ahan bay cuskanayaan, ay u cararayaan oo baryayaan. marka laakiin badaha arrimahoodu ay la gaaro, badaha dadku ay dhibaato ku qabsato, waqtigaas arrintu waa ka duwan tahay oo waxyaalaha kaleo la cuskado iyo meelaha kaleo loo cararo bini aadamku waxay ogaanayaan aysan awood lahayn markay badaha ay joogto maarta. baddu hadday doontu ama markabku u caariyo, dabaylo adag ay soo dhacaan, bini aadamku maaragtay dhulka meelahu u cararo iyo jidad badan buu leeyahay, laakiin baddu jidad badan loo cararo iyo ma laha. markay dhibaatada adagi baddu ay dhacdo, gaalada iyo dadka waxa weeyaan waxay ahaayeen xagga rabbi bay u carari jireen, ilaahay kale bay cuska jireen. waxyaalaha ay kasoo sokeeyeen meelaha dhigi jireen, markaasoo kale waxay ogyihiin inaysan waxba qaban karin, laakiin been naftooda uma sheegayaan, waa ogyihiin reality. markaasay rabbi kaliya bay baryayeen subxaanahu wa tacaala. markii ay la badbaadiyo oo biriga ay yimaadeen oo dhulka usoo degaan, weji kale la soo baxayeen oo ciddii horey ay u cuskanayeen ayay weliba ay bilaabayaan inay cuskadaan. aayadkaasa marka waxaa noo sheegayaa xaqada insaanka, dacfinimadiisa iyo insaanku jazaaranimadiisa oo soo u dafirayo nicmada loo galo. ilaahay ayda inooga hadlaya subxaanahu wa tacaala, maadaama inahu kaana bikum raxiiman, ilahay naxariis u leeyahay, ay asalku waxay asaga in la cuskado ilaahay subxaanahu wa tacaala. ilah wuxuu leeyahy waidaa masakum hadday idin taabato adduru dhibaato hadday idin tibaato, mushkila hadday badda idinkugu timaado. mushkilooyinka baddu mushkilooyin aada u adag weeyaan. ilahay markuu subxaanahu wa tacaala dhibaato inaga badbaadiye, baddu hadday dhibkeeda u yimaado oo hirarku kacaan
dabayluhu maaragtay ay adkaadaan waxaa dhici karta markabka laftigiisu badda inuu isdhex taago uba dhaqaaqi waayo ama matoorka uu ka halaabo ama shiraaca maaragtay waday uu istaago fayadlalna rawaakida calaa dahrih markaa badaha ay dul fariistaan oo dhaqaaqi waayo ama duruuf adage ay ku timaado badaha markay noocaa noqoto biriga waxbaa la maaragtay qofku meelo fara badan baa suurtagal ah suurtagalyaasha ayuu haystaa badan baddu waxa weeye suurtagalyaasha waa yaryihin markay noocaas oo kale ay idin taabato dhibaato idinku dhacdo fil baxri badda dhexdeeda dhibka uu noocaas idinku qabsado dalla waxaa lumaya waxaad hilmaamaysiinoo idin meesha ka baxaya man ciddii tadcuuna aada u carari jirteen oo baryi jirteen man tadcuun dadkaad maaragtay kacsa jirteen meeshay ka baxayaan markaas ilaa iyaahu ilahay marka laga reebo subxaanahu wa tacaala maxay ku tusinaysaa annahum kaanuu yadcuuna allah wayadcuuna gayrah ilaahayna way baryi jireen cidkana way baryi jireen marka labadii saareed mid baa meesha ka baxayo ciddii taagta dareed way ogtiinaysa waxba qabayn ilaahay baa keliya idin soo haraya markaa subxaanahu wa tacaala si aayad kale ilahay ku yiri faidaa rakibuu fi lfulki dacawu llaha mukhlisiina lahu ddiin mushkilada meesha ka taagan ikhlaaska weeyaan markay doomaha raacaan oo badaha galaan oo maaragtay doomuhu la caariyaan dacawu llaha mukhlisiina alla ayay baryayaan mukhlisiina lahu ddiin baryada iyago u saafi yeelay awal mushkilada waxay ka taagan tahay markuu caadiga yahay qofku maarata waxa weya ilahay baryada wax loogu daray dacawu llaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albar idaa hum yushrikuun laakiin banaanka marka la keeno markaas bay shirkigooda dib ugu soo laabanayaan ayad marka ayaddaas bay lamid tahay dalla yacni waxaa lumayo meesha ka baxayood hilmaanteen man tadcuuna ciddaad baryayseen ayaa maaratay ayaad hilmaanteen maarata dalla man tadcuun ilaa iyaa maxaa yeelay bini aadamku xaqiiqada ayuu garanayaa markaasoo wuxuu og yahay inuusan cidina waxba qaban karaynin ilaahay mooyaane subxaana wa tacaala cidda loo cararaya laftigooda hadday doonta markabka ku jiri lahayd ayaa laftigooda mushkilada ku dhici lahayd marka see ku badbaadinaya cid ayada laftigooda mushkiladu qabsanayso way ogyihiin maaragtay cidka in loo cararin ibnu kathiir iyo ibnu jariir dabari hortiis iyo waxay soo guuriyeen kutub alathar tafaasiirtu waxay soo guuriyaan cikrama ibn abi jahl baa kamid ahaa sababaha ku islaama bay kamid aheedoo markii uu maka la furtay yacni wuu cararay markuu ka cararay xagga xabashibu u cararay baddaa markuu ku dhaceen oo xagga xabashi u socdaan baddii ay galeen doontii ayaa dhibaato dhexda ku qabsatay mawjado iyo dabaylo iyo badiyo caarisay dhibaatooyin waaweyn baa ku yimi gaaladii cararaysa oo dhama meesha saareed oo xagga iyo tawxiidka ka qaxayay markaa waxay bilaabeen xagga rabbi keliya inay maarta baryaan wixii la ohan jiray laata iyo cuza iyo manaata iyo hubal iyo balaayadii waa laga tegay waxba ma qaban karayaan gacmahay cirka u taagteen oo rabbi bay keliya ayay baryayaan markaasuu cikrima meeshaas waa maskaxdiisa shaqaysayo wuxuu yihi wallahi hadihi alasnaam in lam tanfac fi lbaxri falan tanfac fi lbar haddayba badii wax noo qaban weys walla baarta berigan waxba nooma qaban karta bur maarta dhulka caadiga wax ma qaban karayso ilaah baan ku dhaartay haddii alla i badbaadiyo waxaa ballan aan ku galay nabi maxamed inta u tago inaan gacanta u geliyoon islaamaan ballan ku galay bud maarta markaasuu saas badii ilahay ka badbaashay oo saas ku islaamay yidhahd marka waa xaqiiqa jirta weeyaan bini aadamku daacifnimada diyaarada markay kula duusho ay saas u gelgilato dabayluhu dhinac walba kasoo galaan mawjaduhu ku kacaan markaas haddaad awowa tiraahdo iyo haddaad maaratay sheekh cabdiqaadirow tiraahdo iyo kan shiiciga caliyow hadduu yihahdo cidna wax u qaban karaysa ma laha maarta way ogyihiin laftigooda meesha hadday lafkooda cidda ku jirto waa la gelgilan lahayd marka almuhim waxaa dhammaanta saacaddaas xaqiiqada ayaa qofka soo baxaya oo cidda cuskanayo wuxuu ogyahay khaaliqu samaawaati walard ilahay cirkii dhulka abuuro awoodda iskale keligiis inuu yahay cidda awoodda iskale subxaana wa tacaala dadka hore noocaasi ay waxay baryayeen oo cuskanayeen oo waxay ahaayeen makhluuqaadka ilahay makhluuqaad ka mid a ayay ahay maarta kan kiristaanka ciiso ayuu leeyahay kuwa kale maarta naamta u yeeranaya waa rag maarta ayay ahaayeen ilaah wuxuu leeyahay dalla man tadcuuna ilaa iyaah way lumayaan waxba kasoo qaad yeelan maayaan ciddaad baryayseen ilaahay mooyaane subxaanahu wa tacaala man tadcuuna ilaa iyaah falamaa najaakum ila albar
falamaa najaakum ilaahay kolkou idin badbaadiyey ila albari biriga iyo dhulka caadiga kolkou alla idin badbaadiyey acradtum waa jeesateeno can atawxiid alkhaalis hadda tawxiidkii aada baryayseen oo rabbiyow keliya aad oranayseen markaas waad ka jeesateenoo falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun oo kale weeyaan acradtum waa ka jeesateen can waxdaaniyat illah acradtum can altawxiid acradtum can atadaruc lilahi subxaanahu wa tacaala ilaahay uu khushuuci iyo hogashadii alla idinku talagalay isaga keliya inaad baridin waad ka jeesanaydiinoo markaasaad la soo baxaysiin maarta diyaaradaad raacdid oo xogay dhaco adoo maarta dhididsan oo kacsan baad leedahay wallahi waxa weeyaan salaadihii iga tegay iyo waan toosaya ilahay hadduu maanta badbaadiyo markaad guriga timaado ee maarta ilahay kusoo badbaadsho meeshaad iyaad ka wadaysaa maarta kaanahu lam yakun shay waxba maba dhicin baad u qaadanaysaa duruuftii adkeedaad soo martay iyo wixii kugu yimid iyo miskiinnimadaad muujinaysay waad hilmaamaysaa bini aadamku waa daciif weeyaan marka ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala falamaa najaakum ila albari acradtum waad jeesateen ma garanaysaa nasiitum altawxiid waa hilmaanteen maxaa sababtu waa maxay dabciga insaankaa saas ah wa kaana alinsaanu bini aadamku wuxuu ahaaday kafuuran mid nicmada dafiritaan badan buu ahaaday kufriga loo jeedo waa kufraanu nicam waa nicmooyinka ilaahay lagu kufriyo subxaanahu wa tacala ma la dafiro marka qaarkood baa kufrigu waxuu noqdaa yani kufriga waxuu noqdaa kufrun duuna kufrin marna waxa wey waa kufrun mukhrij min almilla kufr xeed baan loo isticmaalaa qitaalu lmuslimi kufrun wa sibaabuhu fusuuq wamaa ra-aytu yani takfuru ixdaakuna yani cashiirahaasuu nabigu yidhi haweentu ninkeeda waa ku kufrin badanta waxaa loo jeedaa waa ku kufrin badan tahay way dafiritaan badan tahay loo jeeda marta marka qaarkood marka kufraanka hadda meeshan loo jeedo haddii qofka uu ku kufriyey ilaahay maarata tawxiidkiisa subxaana waa kufrigii weynaa haddana waxa wey nicmadii ilaahay oo badbaadida badda laga badbaadiy qofku ku kufrinaya marta oo waxaa inuu shukriya looga baahnaa ilahay keliya cibaadadiisa joogto ka dhigto tawxiidka ilaahay subxaana wa tacaala allihii soo badbaadiyay asaga keliya uu caabudo laakin wa kaana alinsaanu kafuura insaankaas mufasiriintu laba way ku fasiraan insaanka sifatu caam waa yani jinsi ah oo insaanku ka insaan ah insaanka waxaa lagu abuuray sidiisaba inuu dafiro inkiro nicmooyinka loo galo waa saas dabci lagu abuuray insaanka gaalkana waa ka daran yahayo taasoo waaba diidaya ilaahay khaaliqii abuuro ahaysiiyey subxaanahu wa tacala ayuu diidaya nicmooyinka u galay wa kaana insaanu kafuura qofku haddii uu kusoo badbaado cirka markuu marayo laga soo badbaadiyo ama markuu maaragtay oo badaha ku jiro alla hadduu kaa soo badbaadiyo insaanka laga soo badbaadiyo uu nabad galo dhulka uusoo nabad galo arlada uu yimaado dhulkii waxa weya wuxuu isleeyahay meel nabadgelyaha joogtaa ilaa wuxuuna leeyahay dhulka laftigiisu nabadgelye ma aha alla hadduu doono subxaanahu wa tacaala arlada laftigeedna ku nabadgelaynin ha u qaadanina dhulka inaad laftigeeda ku fakakaraysiin ilaa wuxuu leeyahay afa amintum miyaad aamin noqoteen haddaad kufrinaysin oo isleedihiin dhulka unbaa laydinsoo badbaadiyey afa amintum miyaad ka nabad gasheen an yaksifa alla inuu gooyo bikum adinka jaanib albari dhulka daantiisa inuu idinla gooyo aw yursila ama aw diro calaykum dushiina xaasiban dhagxaan iyo quruurax roob ah inuu idinku soo deeyo uma dibadeedna laa tajiduu aadnan helaynin lakum adinku wakiilan cid maaratay idin ilaaliso idin badbaadisa aadna helayni maarta wakiil idin noqota oo idinka badbaadisa ciqaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala ama amintum miyaad aamin ka noqoteen an yuciidakum alla inuu idin celiyo fiihi badda dhexdeedi taaratan ukhraa mar kale oo fa yursila aw diro ilaahi subxaanahu wa tacaala calaykum dushiisa qaasifan min alriixi dabaylo burburiyaal ah oo waxba aan ka teginin oo fa yuqriqakum ilaahay ou idin maasheeyo biyaha idinku maasheeyo bimaa kafartum gaalnimadiini daraaddeeda uma dibadeed laa tajiduu aadnan helaynin lakum adinku calaynaa dushannada bihi halaagaas tabiican cid daac inoo raacata maaragtay dayn inoo raacata cid maaragtay dayn iyo raacasho iyo aysan jirin daalac cidna rooma raacan karayso markaa kaana baabeen ilaah wuxuu subxaana wa tacaala qudradiisa alwaaliqa awoodiisa ayuu ilaahay noo sheegayaa miskiinka insaanka daciifnimadiisa taagdarrada bani aadamka insaanku dhul ha joogo ama cirka ha marayo ama badaha socdo meel uu ku nabadgelayo ma jirto meeshii alla uu nabadgeliyo mooyaane subxaana wa tacaala makhluuqaadkiisa kuwa ugu yar buu ku sanadaya hadduu doono dabaylaha yarkaa maarta
oo aan neefsanayno oo geedaha yarka dhaqaajinaya kuwaas inta lagu salado ay eberka dhigayaan hadii maarta makhluuqaadkiis min adaq makhluuqaati subhanahu wa ta'ala meel kastana khatartu way iska taala qofku marka inuu ilaahay ku xiran yahay subhanahu wa ta'ala qofka ilaahay ku xiran baa badbaadaya jalla wa ala marka dhowr arrimood baa ilaahay noo sheegay qofku u maleynaa inuu fakanayo oo badaha kale mushkiladu ay tahay dhowr sababood ba maartay waadixa iska cad baan noo sheegaya oo dhici karto khatar ku jirto maartay midda koowaad waxa weeyaan waa dhulka intaan marayno dhulka laftigiisa la gooyo dhulka kula goobo hoosaada gashid baa dhulka hoostiisa ka war inta soconaysa meel nabadgelyo ma saar marka dhulka dul maraysaa nabadgelyo ma ah rabbi baa iska leh subhanahu wa ta'ala haduu doono waa kula goynaya ay u tala galin maarta inuu nabadgelyo oo dhulka dul marayso haduu doono ilaahay soo maarta roobka inuu soo daayo soo roobaynaya ka waran hadii bumbooyin uu ku soo daayo iyo balaayo maarta dhagaxaan ayaga dhaba dab ah hadii uu ku soo daayo bini'aadamka roob cadaababa u doo ka war haga maarta nabadgelyo ma xagga hoosana nabadgelyo ma ahan xagga korana nabadgelyo ma jirto cid ilaahay nabadgelyo ma yaani subhanahu wa ta'ala dhulka hoosana waa la gooyn karaa dusha sarana maartay waxa weeyaan roob oo dhagaxaan iyo balaayo aan ku soo deyn karaa waa la ogaa taariikhda sida dhacda qaaruun asagoo isla waaweyn oo kibirka ka batay oo qablaba dhulka la gooy fa qasafna bi wa bidar al-ard asaga iyo daartiisa dhulka la jaray qamuluudna sidoo kale ma iga kibray baa dabayl waxa lagu soo daayay dhagaxaan maartay oo cadaab ay ciqaab ah ay ilaahay dusha uga soo daayay meesha si roobka lagu roobeeyay maartay ilaahay ku soo daayay subhanahu wa ta'ala way dhacday binaadamkan waa awlaha woodi kara jalla wa ala madabadan waa lagu kiciyo noocaas oo kale maartay waa midaasi mid laga fakarayo ma ahno nabadgelyo kor iyo hoos dhulku laftigiisu ma waxa dhici kara mar kale inaad safarka dib lagu celiyo madiina dib u laabateen waa dhici karaysa diyaaradii laga soo badbaadiyay dib mid kale u raacdin waa dhici karaysa adoo dan iskale oo markaasi ilaahay subhanahu wa ta'ala aw dabaylo burburiyaal soo daayo subhanahu wa ta'ala maartay dad markab saaranta la maartay biyaha dhexdeeda hada diyaarad saaranta dabayl inta lagu kiciyo dhab la kala tuuro maartay inta ba ilaahay waa awoodaa subhanahu wa ta'ala hadii lagu xalaago oo noocaan lagu geysto insaanu ilaahay cid oranaysa maxaad Allah u sameeyay ma jirto maartay ciribta ka xabsan maayo in la xisaabo iyo in maartay qaan loo raacdo iyo in mag loo doonto iyo waxba ilaahay ka baqi maayo subhanahu wa ta'ala fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbin fasawaha wala yakhafu uqbaha qariban rabbu abarka dhiga waxa way ciribtooda kama cabso qofku falka bini'aadamku markuu fal sameeyo jariima anagu aragno marka sameeyno waxa noo keenay inaan ka joogsano ama daarac lagu raacdaa ama lagu soo qabtaa weeyaan laakiin khaliqu samaawaati wal ardi idda daarac raacanaysa ma jirto maarta la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun ila wuxuu sameeyo lama weydiyo maxaa uu sameeyay lama yiraahdo cid oran ka taan ma jirto koonka saas kale jalla wa ala xaqiiqooyinkaasi oo nagu bixinaya inaan maarta aayar dhulka u socono inagu bixinaya inaan ilaahay ka cabsano saacad kasta iyo daqiiqad kasta aan joogno ilaahay inaan muraaqabayno oo aan ka cabsano awoodiisa ma garanaysa jalla wa ala oo xadar iyo digtoonaasho ku jirno ayaadkan inagu bixinaya loo sheegaya ayna ka dharanayso ilaahay weynayntiisa nabigeena kaleey salaatu wasalaam saas buu hayo wax alla wax koonka marka isbedel ku dhacayo xasaas aad buu u dareemi jiray dabaylo haday dhacayo wajigiisa laga arki jiray kaleey salaatu wasalaam marka roobku uu yimaado waa way wajigiisa tiraya laga arkay markaas Aisha weydiinaysa maxaa ku dhacay dadku waa faraxsan roob baa imaanayay markaas uu maxay ogeysiyeen inuu cadaab yahay dad baa yiri hada aarid mumdiruna markaas lagu yiri bal huwa masta'jaltu bi riihun fiha adabun alim tudammiru kull shay bi amri rabbiha marka muuminku waa inuu samaarta isdigan ogaado awoodda ilaahay subhanahu wa ta'ala iimaanka keenaya arinta ila wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala أفأمنت عن طريق الاستفهام وتعجب ولا يابله سؤال بلا ويدينيا لكن سؤال شو حويا ولا ياب ويان إنسان كان لا يبين أفأمنتم أيها الناس وردتكم إنسان كان كفور كهو وكان الإنسان كفورا أيها الإنسان الكفور إنسان كان كفرنا ونعمد إلهي الدفرسنو ورمية آمن كان نقطين أن يخسف الله إنه قويه بكم أذنك جانب البر برقة يقولك دانتيس قركيس انه لغويو سبحانه وتعالى جانب حالو ليهي جانب هو بحر جانب وبط جانب كنا وبر ويان الرضو واساس ويان marka hadii aad jaanibkii badda la idinka soo badbaadiyay dhinacii badda soo jaanibkii bariga oo maarta dhinacii bariga soo laftigiisu khatar ma aan balay maarta oo la idila gooyo maarta an yakhsifa inuu ilaahay gooyo khasfigu waxa weeyaan waa qofku dushii sare hoos loo gediyo ama shaygu isbedelay dhamaantiis
si ala leeyahay maarta khusuufu shams marka shamsiga la waayo oo kale qoraxda la waayo oo kale ayaa la yiraahdo kale ay maqanta marka adiga dhulka joogaba inta lagu la gooyo dhulka ku laqaba aradu ku laqdo waa suurtagal weeye marka inuu la gooyo oo dhulka Ilaahay la jaro subhanahu wa ta'ala miya nabadgeliye ka tiin yaa idin siiyay nabadgeliyadaas yaa awood Ilaahay suurtaa karaya subhanahu wa ta'ala ma idin sidaa jirta nabadgeliyadaas waa maya Ilaahay iska jira subhanahu wa ta'ala waa mid waa dhici kara waa muhtamil waa arrin dhici karaysa weeyaan in dhulka la jaro waxa kale oo dhici karaya dhulka hoos weeyaan tan korka sare in la idinkaga yimaadana waa dhici karaysa oo korka sare iska difaac weydin أو أمس يرسل إلهي ميد آمن نقطين آمنتم يا أفامنتم آمن نقطين أن يرسل إلهي إنه الدره عليكم دشين حاصبا دقحان مارتي بربرينيسا وحلاهي إنه كدره سبحانه وتعالى حاصبك وقرور إيو دقحان تيرويان أما مطر يحمل حاصبا دقحان سده إلهي إنه كسود دايا سبحانه وتعالى سي قرى قوم اللوط بالقسم يا مارت إلى كسبه جل وعلا قرية كريسة أيضا ما كربان نقول ما كرا أصبر نقول ما كرا لنا أول بار الكحجة بالدفاع كرا المسكين مساكين بنا إلى أن أسكيل على سبحانه وتعالى هدي أيضا عضو أرنتها سنة ثم الدبدت لا تجدوا هل ميسين لكم هذينك وكيلا أي حافظا عد على سهل ميسين مارت وكيلا بمعنى معينا ومساعدا cid idin kaalmayda oo idin taageertana heli maysiin cid idin soo gurmataana ma jirayso cid ilaahay awoodiisa hakan kartaana ma jirto subxaanahu wa tacaala walahu qudratun mutlaqa yafcalu maa yashaau subxaanahu wa tacaala awood furan buu leeyahay laa mucaqiba lixukmi walaa raadda liqadaa'ihi subxaanahu wa tacaala xunkiisa iyo qadihiisa cid ka hor imaan karta ma ay jirto marka ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala ha ku kufrina nicmooyinkiisa أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى أرنك لو صدحات ودعي كرتا جرتا مارت دي حتى بدل الذي كسو بتبادي ميانا بدي دبو ولا بنين صدنا كما يلان كريسين عركا دي اللي جابت بادي سو مارت مالك لا دبو ولا بن مس هدي سو ماشي قلفتو يرتقي مس أو مع وين احتمال أم أمنتم ما سمى آمن نغتين أن يعيدكم ألا إنه أذن عليه فيه أي في البحر بدي دبي للكوكو عليه ضميركم بدي بقول الله بنيا يمشي اللي سكبت بادي إنه دبي كوع عليه تارة أخرى أي مرة أخرى ويان مركل إلى أن دبي كوع عليه سبحانه وتعالى سوميا دائما كتير نفتين ولقى ما ضد ديارك عبصات شرولة ديارات بالراعي ماي سو كلفت كذي يعني بتقول لك تسي ديارات ما تجير ديارات نكون حرة نكون حرة أو ماشي مرة سواء سكون مدويان إلى هو سكون مدمارت سبحانه وتعالى فعاجز قليل كريم ملها جل وعلا ما لو وفق قرر ملها مركب أما أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى مياد آمن نقطتين إلى الأنسوع إليه تارة أخرى مرة أخرى فيرسل إلهي أودر سبحانه وتعالى عليكم دشينا إلى أودن كسودر جل وعلا قاصفا من القصف هذا ابن آدم كو أرغن قاصفك اللغة العربية عربية جوكتا ديارهم كمال قراعية أيو استعمالها قصف الطائرات بلنا ديارهم مال قراعية لكن قصفه بمعنى الكسر ويا وضبيله وحتجبينيه خربيه مارت قراعيه ايالي هذا ما تقصف قاصفا من الريح يعني الضبيله بربريال waxba aan ka tagaynin dabayshu marna waa naxariis marna waa ciqaab weeyaan badana hadday ciqaab tahay riix baa la yidhahdaa maarta waa mufrad baa laga dhigaa hadday khayr tahayna waa jamac هذا شرط هنا ومفرد وياه وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته هذا هلاقي هنا مارت ريح بالي هذا لبضوا مرة وانا حريص مرة وحوان وعقاب وياه يصير لا يواديك سبحانه وتعالى خلاص كيس كمت قد ضبيش المركز طبعا إلهي أقول لي عقاب إن لو بدل لفتي آمن كمت هنا تلا إذا كدروا أي بربرنس أركز الضبيش ضبيل meelaha qaarkood lagu diro hadda dabaylaha magacyada loo bixinayo maartay magacyada loo bixiyo adduunka mid walba magac gaar ah loo bixiyay dabaylaha inta lagu diro gaari maarta 10 tan ah ay si caleen ay u wata arkaysa hawada maarta oo biibayo si caleen oo kale fahmaysa markab weyn oo badda yaal intay ku soo dhifata waxa arkaysa baddi intaasoo kiiloomitir bay maarta badda ka turta markabkii dhan badda dhexdiisa jooga qudratullah subhanahu wa ta'ala dabaysha marka Allah kiciyo waxa waa energy cajiib ah يعادوا مارت إلهي صوت كدر مارت
ciidamaysa ku dira weeyaan subxaana wa tacaala. marka waxaan arkayno maaragtay magacyada loo kala bixinayo maanta magacyo badan baa loo bixiyaa torneedo iyo ubixaad waxaad doontid magaca u samey, laakiin waa ciqaab ilaahi subxaana wa tacaala alla soo diray. waxaa laga yaabaa ninka gaalka ahay gaalnimo uu sii korsado u yihahdo dabeecaddu awood badana. dabeecaddu waa maxay? waa ciqaab ilahi. dabeecada awood baa ku haysa dabeecada aad bedelaysa dabeecada marka uu yihahdo maaragtay waa natuurku xoog badana ama maarata dabeecaddu xoog badana u yihahdo gaalku. dadka qaar kana nooca ay moodaan waa qudrada ilaahi subxaana wa tacaala. dabaysha asagaasaa ka dhigay jala wacala. aw yursila calaykum xaasiban markaasuu leeyahay aw yursila ilaahi ou diro ama mintum an yuciidakum fi taaratan ukra oo fa yursila alla ou diro calaykum dushiina qaasifan yani min ariix alriixu lqaasif ama qaasifan burburiyaal oo min ariixi dabayl ah oo fa yuqriqakum markaa ilaahay idin maasheeyo biyaha idinku hafiyo subxaana wa tacaala. dabayluhu waxa weeyaan markabka dhan saata u dabagediyaan ayay maaragtay badda gelinayaan. waddankan aan joogno markab xoog badan oo maaragtay ayaa isaga dhammaantiis baa badda galay finland iyo sweden inta udhexaysa. dabayl inta ilaahay bala kusoo diray markaasay waxaan arkaysaa dadkan oranaya oo aan aayatinka ilahay rumaysan ilaahay muxuu noogu awood sheeganahay kuleeyahy muxuu noogu xoog sheeganahay saas bay leeyihin maa garanaysaa subxaana allah. ilaahay muxuu noogu xoog sheeganahay awooddiisa noogu sheeganahay kuleeyahy maarta. marka waa ogyihiin ilaahay awooddiis inuu ilaahay awood leeyahay subxaana wa tacaala inuu awoodda qudrada rabbi jala wacala. hataa marka ilaahay awooddiisa ilaahay kuwa awood sheeganaya ad og tahay maxaad u caasinaysaa waaye maxaad ugu xadgudbaysaa subxaana wa tacaala awooddiisa saas u garanaysa. oo fa yuqriqakum markaa ilaahay idin maasheeyo uma yuqriqakum ilahay idin maasheeyo. maxaa loo idin maasheeyey? lama maagin, waa bimaa kafartu bikufrikum gaalnimadiina daraaddeed. gaalnimada aada sameydeen baa ilaahay subxaana wa tacala bimaa kafartum ay bikufrikum bisababi kufrikum wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid. alla addoommada ma dulmiyo, laakiin markay kufriyaan waxaa dhici karaysa qof kufriyey qof kale inuu maaratay dhib u geysto dhici karay dembiga uu la yimid darteed qofka loo qabto. fa yuqriqakum oo markaa ilaahay idin maasheeyo bimaa kafartum kufrigaad gaalowdeen daraaddeed. uma dibadeed laa tajiduu heli maysiin lakum adinku calaynaa annaga dushanada bihi ay bisababi halaaki halaagga aanu idin halaagnay heli maysiin tabiican cid inoo raacata qaan cid inoo sheegata heli maysiin. tabiic heli maysiin ma jirto. calaynaa lakum calaynaa lakum waa adinka dar maslaxadiina calaynaa annaga dhibka naga inaana dhibo ilahay cidda dhibi kartaa ma jirto qaan inoo sheegan karaysa malaha. lakum calayna bihi ay bilhalaaki tabiican. tabiica waxaa la yidhahdaa taabic iyo tabiic baa jira. tabiicu huwa aladii yatbac alinsaan liyadluba minhu athar. qofkii qof daba socda inuu maaragtay ka qaato magtii iyo aantii ka qaato ayaa la yidhahda maarata. ama deyn buu qofku leeyahayo waxa weeyaan tabiic baa la yidhahdaa. deyntii buu doonaya darafta ku haystaa marka cidna qabsan karto oona dhici karo deyn noo sheegan karta ma jirta baa ilahay leeyahay subxaana wa tacaala. markaan idin halaagno oo idin burburino yani cidna kama daba hadli karayso. ilahay awooddiisuna waa saas weyaan. uma laa tajidu lakum calayna bihi tabiica bihi bilhalaag halaagga aad halaagnay nalama raacan karayo. insaanka badahaas loo sakiray oo nicmada la siiyey haddana nicmada dafiraya oo ku kufrinaya ayaa ilaahay wuxuu inoo sheegayaa sow u sharfay u karaameeyey fadliga la siiyey ay badahaasi ka mid yihiin maaragtay iyo birigaasi loo sakiray. ilaah wuxuu leeyahay walaqad karamnaa bani aadama dhab ahaantii waan maamuusnay waynu karaameynay bini aadamka. waxaa ka mid ah takriimka la siiyey waxamalnaahum waxaynu ku xambaarnay fi lbari berigii baan ku xambaarnay. waa kan beriga duulaya diyaarada maarta ku duulaya hawada sare soconaya. waa kan ma garanaysa dhulka dul soconaya. xamalnaahum fi lbari walbaxri badihina waan ku xambaarnay. badihina waa loo sakirayo maraakiib waaweyn buu kusii daynaya. warasaqnaahum waanu biilnay min aayibaati raashin wanaagsanna adduunka maaragtay nuxurkiisa iyo nacfigiisana isaga un baa cunaya. ilahay baana u arsaaqay subxaana wa tacaala. wafadalnaahum bini aadamkii waan dheeraad siinay
calaa kahiirin in badan oo miman kamida khalaqnaa aanu abuurnay tafdiilan dheeraad dheer ayaan siinay dheeraad aad ah ayaan ka fadilnay insaanka ilahi wuxuu leeyahay subxaana wa tacala kaana insaanu kafuur insaanka nooca u kufrinaya ee maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa keligii inuu caabudo asaga inuu isu dhiibo asaga inuu cuskado diidan annaga ayaa booska geynoo fadilnay baa ilahi leeyahay subxaana wa tacaala insaanka bini aadamka karaamo weyn baa la siiyey laakiin karaamadaasi waxay sii soconaysaa ciddii si alla doonayo u dhaqanta ciddii ka baxdahay adduunyada yarirka maarta uu ka intifaacaya laakiin karaamada waa laga laabanaya waa la ihaanaysanayaa waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim ciddii ilaahay ihaadaysana cid karaameynaysa ma jirto insaankaas waa karaamaysan yahi waa la karamay karaamada ugu weyn oo ilaahay siiyey waxaa kamid a maarata ilaahayba inuu ku abuuray biyadayhi subxaanahu wa tacaala inii khaaliqun basharan min tiin ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadka uu gacmihiisa ku abuuray jala wacala ayuu kamid yahay bini aadamka waa karaamaday kamid tahay takriim ullahi subxaana wa tacaala iyaah kabacdina ilaahay wuxuu siiyey wuxuusan siin makhluuqaadka kale maskax uu ku fekero iyo kala doorasho ayuu siiyey waa kan waxaa kaloo loo sakhiray koonka ayaa isaga loo sakhiray inkastoo xayawaano ka waaweyn iyo makhluuqaad inaga awood badan ay ku nool yihiin haddana cidda gacanta loo geliyay waa insaanka weeyaan waxau maslaxadiisa markuu rabo u doonayo makhluuqaadkaas ka waaweyn ayuu maaratayba adeegsanaya ilmo yar waxaad arkaysaa oo maroodi weyn iska kaxaysanaya cagta hadduu saarona waxaway bariji asa dhawaadsa u dhamaanaysa cagtiisa keliya ku filan laakiin waa sakhiraya ilmo awr weyn iska wataad arkaysaa maarta ilaahay baa sakhiray subxaana wa tacaala hawadii waa loo furay dhulkii waa loo furay badihii waa loo furay koonkii baa gacanta loo geliyey wasakhara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiica ilahay baa sakhiray koonka waxaa kusugan dhammaantiis waxaa loo cirka loo dhisay oo loo taagay qoraxda loo soo saaray dayaxa loo sameeyey habeen iyo maalin loo sameeyey waxa weeyaan waa insaanka dartiisa weeyaan marta ayaa loo sameeyey intaa dhammaanteed waa manaaficadiis maalinta insaanka laga dhameeyo dhulkaa laga dhameeyo ee uga dhammaato ka guurayo laga rarayo cirkana waa la laabin dhulkana waa la laabaya koonkana maanta waa lasoo laabaya maarta maxaa yeelay insaanka awalba loo abuuray loogu talagalay walarda wadacahaa lilanaam makhluuqaadkaa loogu talagalay weya insaanka ilaahi jala wacalaa nicmooyinkaasi asagoo insaanka siiyey ayaa haddana insaanku uusan nicmooyinka ilaahay garayni oo ku kufrinaya nicmooyinka ilaahay jala wacala wakaana insaanu kafuura insaanku wuxuu noqdaa mid kufri badan ilah wuxuu leeyahay jala wacalaa walaqad karamnaa dhab ahaantii waynu maamuusnay waanu karaamaynay bani aadama aadam caruurtiisa waynu karaamaynay ilaahay karaamo ayuu siiyey subxaana wa tacaala manhaj iyo diin buu u sheegay abuurka la abuuray waa kala karaameeyey si la taagay qur-aanka si uu ilahay ku sheegay karaamaday kamid tahay in la taagay insaanka axsanu suura waxa weeyaan qaab wax loo abuuro qaabka ugu qurxoonay baa maarta ayaa loo abuuray waxaan leenahay waxaa la abuuray insaanka ugu qurxoon koonka waxa weeyaan waxaa la abuuray qurux marka la yihahdo insaanka maarta sida qur-aanku marqaati uu ka yahay hadda kahor baan dad weydiiyo on ku iri koonka yaa jooga uu qurux badan markaasay ugu yihahden daawuusa ayaa u qurux badan markaasaan ku iri yaa jecel inuu daawuus u ekaado insaanka daawuus loo ekeeya min aqbax maa yakun buu noqonaya fool xumays baa laga carara waxayna leeyihiin daawuuska ugu qurxoon dhulka joog ma garanaysaa shibra aan aragno waxay kusinaysaa insaanku waa ka qurxoon yahay maarta makhluuqaadka dhammaantiis insaanka ayaa ugu qurxoon ilahay baa abuuray subxaana wa tacaala saas buu u abuuray insaanka siman oo qurux badan ma garanaysaa fi axsani suura oo ilahay ku abuuray xayawaanaadkan dhulka nala jooga maaratay afarta adin iyo ku soconaya afkay ku daaqayaanoo madaxooda waa fooraa insaankana waaba la istaajiyo si qurux badan baa loo istaajiy maarta ilaahay baa kamid tahay maaratay karaamada uu siiyey subxaana wa tacaala sayidkii koonkan buu ka dhigay oo asagoo gacmaha u geliyay wax kastaba koonka waxa jooga asagaa nacfisanaya asagaa ka manaafacaadsanaya insaanku waa karaamada ilaahay takriimka ilaahay sameeyey takriimu lmanhaji baa la siiyo wadadii baa loo cadeeyey oo soo u noolaan lahay soo badbaadi lahay adduun aakhira waa loo soo dejiyay garanaysaa walaqad karamnaa bani aadama insaanka waan karaamaynay karaamooyin baan la koobi karaynin laakiin tusaalooyin baan lagu samaynayaa waxyaa lagu karaameeyey oo lagu fadilay waxaa kamid a waxamalnaahum waynu qaadnay fi lbari barigan ku xambaarnay
وكاس برق مارت إلهي سبحانه وتعالى أسخري dhulkii oo maartay sanooyinka loo socon jiray daqiiqada yar yar buu ku goynaya maarta waxa weeyaan waxa loo sakhiray gaariyaal iyo diyaarado iyo maartay dhulkii buu saas u jiray asaga waxa weeyaan waxaan saas u wareegay dhulka dhamaantiis insaanka ilaahay baa nicmadiisa ka mid tahay subxaanahu wa tacaala iyo fadliga jalla wacala dhulka in loo sakhiray barigii loo sakhiray walbaxri waxamalnaahum fi lbaxri badina waan ku xambaarnay badina waa ka gooshaya waa goynaya maraakiib waaweyn iyo maarta arkaysiin ay ilaahayna subxaanahu wa tacaala nicmadiisa fadligiisa ka mid tahay subxaanahu wa tacaala fadligaas muxuu u baahan yahay mufadilka ilaahay fadilay insaanka inuu ku shukriyo haddii nicmo qofku siiyo waxa weeye waa inaad ka macabaal celisaa maarta bini aadamka wada wax ku galo khaaliqii ku abuuray maxaad manaysa haddana inaad wax ugu dartid asoo intaa ku siiyey subxaanahu wa tacaala haddaad baahan tahay maanta haddaan baahannahay baahi adoo saan baan soomanaad soonka markaad afuraysid haddii aad adoo saas markaad tiraahdo xeero weyn oo qurux badan oo raashin ka buuxo dhinacaaga taalla aad aragtid su-aasha hore maskaxda kusoo wareegeed waxay tahay waryaa iisoo diyaariyey talow soo sax maaha intaadan wax kala samayn marka koonkana ilaahay isu kaa saaray waxay ahayd asalka waxa ugu horreeya inaad tiraahdo yaa saan iigu diyaariyey maarta baxdidii baartid ilaahay khaaliqii ku abuuray subxaanahu wa tacaala ee koonkaasaan kugu sahlay asaga keliga aad caabudid subxaanahu wa tacaala laakin wa kaana linsaanu kafuura sa ilahay leeyahay subxaanahu wa tacaala insaanku waa kufrin badan yahay وضفرتها بداية وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم وانو أرزاقني من الطيبات وحياله وناكسن حقه ضيان كأرزاقني راشن كان لسيي وراشن وطيبات نافعية تلك نافعية انت النحر كره هدان كعنان حيوانات كيبلاها كذا وحياله يرى عضد علينا لكن الإنسان كأن باكو نعفك والإنسان كساق قادني طيبات بإلهي سبحانه وتعالى إلى وكم من هذا السنة insaanka marka loogu talagalay raashinka wanaagsan waxa weeyaan wixii xalaal ah oo raashin ah oo Ilaahay noo diyaariyay insaanku inuu cuno waa u banaanta maarta qul man harrama zinata allahi allati akhraja lilibadi wat-tayyibati min ar-rizq raga qaarkood oo maarta sheegtay ahlu cibaada inay yihiin ayaa waxa soo caalam islaam soo maray waqti ay raashinka ba iska tageen oo ragga waaweyn ragga mida ayaa inta caleen soo gurto tunto ay oran jiray waligayba waxa bini'aadamku cunaba afka ma saarine caleentaasan ba cunaaba kuleeyay maarta بس هو انحراف منهجي ويا وضف انفعنين وده صح ما الهي با سبحانه وتعالى راشن حلال هذوك وسيو ونعمه الهي بكمت انا ترى وان زهدي بدرتي هذا ايام مارته وحن عنايا على انتم طيب صح ما واحد قدب ويا ما خير بنت النبي محمد عليه الصلاه والسلام حويا كان يحب الحلوى عليه الصلاه والسلام حلوين كوجي على راشنك وحو هلو عون جرى عليه الصلاه والسلام مركو واينا واسك صبر جرى لكن إذا حلاش وكويا للرجل حلال إلهي كسي ورزقناه من الطيبات كمت وطيبات كإلهي سبحانه وتعالى وقلوب حد قلوب ويا وبكاس إلهي وحوله سبحانه وتعالى ورزقناه ونبينا من الطيبات وحياله وناسن راشن كأيا نكبل بين مار وحين نعفق الإنسان كأيا إلهي سبحانه وتعالى أي إلهي سي جل وعلا وفضلناهم بن آدم كوان فضلني على كثير إنبدا وممن مخلوقات كمذا خلقنا أن وأبورني أيام كفضل لي وتفضيلا فضلتان أدبر الله فضل سبحانه إلهي سبحانه وتعالى مصدر كمفعول مطلق أو الله كان تفضيل وين إنه يا مارت إنسان كلفت جيس على سكر فضل عد بإلهي بوس جارسي مركا إنسان كنا كجودهان مخلوقات كإلهي ولا فضل سبحانه وتعالى وحيالها لسي مخلوقات كلا مثلا مخلوقات كلا إيجا الله سخر إنسان قال قعنت اللي وجري وحمركا وحويا كونك الله كلا فضل يا بن آدم هذا مسكحي الدورشة لسيي اختيار لسيي مسكحي لسيي أسجع مارتي سيد لوجا دقي كون كانوا مارت كوش قيسنا أصلا وحي يدو أيا كحجة ساس والله سيك على سعانية يعني حويا كون كوعد شو جاه وحونا وحنور وحوا جمادات وحنور يصير أنا جاب مركم فيرن أنا نورين والدرجة هو صيد وحنا ما قرنا إنسان نور وحويا وحنور وكسر سرية جمادات كوحنا وحوا كوح نول دقائق له حركة إيه لمارت كوحنا ونوشهاي وحواي قرنيسا كوحنا نوشهاي عقل يدور شوية الاختيار بن آدم كابو سرية بكسي أصلوا كلا سرية الله سعناه بن آدم وحكون نول يوحي دقائقي أرجي جيلي لوذي حيوان كي سعنا يو نوله نولش يسيعنا حيوان كنا وحي يسيعنا كون نول لكن أنا دقائق جيلي يو مارت وحي لم يسيعنا geeduhuna waxay ka sii manaaficsadaan jamaadaadka iyo ciidda iyo dhulka wixii ka ayaguna kooxba yasii cuntaa
kusii noosha inta dhammaantoodna insaanka ugu shubaysaa marka ugu dambayda waa insaanka ayaa maarta insaankana waxaa loogu talagalay inuu ilaahay kaliya caabudo subxaanahu wa tacaala wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun cibaada ilahay keligii inuu caabudo subxaana wa tacaala koonka saas baa asana loogu sakra koonka ka faa'iidayso ilahayna khaaliqaagana caabudo subxaana wa tacaala wafadalnaahum calaa kaiirin miman khalaqnaa tafdiila haddii marka dhulka lagu noolaado laysu sakiray intaas bini aadamka looga hari maaye waa mukalaf bini aadamki waxbaa loo diray waxaan waa xalaal waxaan waa xaraam da saxdaa waa tantan waa qalad maanta qiyaamada ayaa ilaahay subxana wa tacala la xisaabtamaya insaanka waxaa loo fadilay liyakuuna mas-uulan can tasarufaatihi fi hadi alxayaa sow nolosha adduunyada wakiil mas-uul uga noqdo waxyaalaha uu sameynayo tafdiilka taasaa keenaysa marta maskaxda caqliga iyo takliifka loo sameey marka maalinta la isxisaabayo nooca loo qaybsami doono bini aadamku fadliga ilaahay say u adeegsadeen bay ku xihan tahay waa la qaybsamayaa ilah wuxuu leeyahay jala wacalaa yowma maalin xusnaa maxamed calayhi salaatu wasalaam nadcuu aan ugu yeerayno kulla unaasin dad kastaba aan ugu yeerayno biimaamihim acmaashoodii kitaabkii iyo qoraalkii laga soo diyaariyey oo adduunyada ay sameeyeen aan ugu yeerayno laba midkood bay noqonayaan inuu kitaabkaasi iyo qoraalka laga diyaariy riboodka laga keenay inuu wax fiican yahayo acmaal wanaagsan ay sameeyeen lanna maxkamad baa lasoo diyaarinaya kooxdii wanaag laga soo diyaariso soo diyaarsato wanaag la yimaaday oo riboodkoodu fiican yahay gacantooda midigtaa loo gelinaya kitaabkooda macnaheedu waa calaamad inaad boostay inaad baramoostay ama maaragtay aada guulaysatay ama najaxday gacanta haddii midigta lagu geliyo ilaahay subxaana wa tacala kitaabkana midigta naga siiyo ilah wuxuu leeyahay faman uutiya qofka la siiyo kitaabahu kitaabkiisa qoraalkiisa biyamiini midigta laga siiyo fa ulaaika kuwaase yaqra'uuna kitaabahum kitaabkooda ay akrinayaan ayagoo faraxsan walaa yudlamuuna lana dulmin maayo oo fatiilan xub timireed dulman fatiilan weyaan xub timireed dulmi la-eg la dulmin maayo wax yar baa la ka dhigay waxba laga dulmin maayo kooxi waa kooxdaas kooxda kale waxa weeyaan waa kooxdii xumida sameyday dhulkana si indhala-aana ugu noolaatay manhajka ilaahay ka fogaatay waman kaana qofkii ahaaday fii haadihi adduunyada dhexdeeda acmaa mid indhala fa huwa asagu fi laakhirati aakhiro dhexdeeda ayuu acmaa ka indhala-aan badan yahay wa adalu ou ka lumitaan badan yahay sabiilan xagga wadada waa qaybtii labaad weeyaan bini aadamku kooxina wanaag bay sameeyaan kitaabkooda midigta laga siiyey waa loo dhamaystira waa faraxsan yihin kooxna kitaab bidixdaa laga siinaya adduunyada markay joogeen waaba indhala-ayeenba xaqaysan aqoon cibaadaysan garanaynin manhaj baysan aqoon wadada ay qaadaysan kala jeclayn adduunyada waa iska shabkaxsan jireen si indhala-aan ay ugu noolaayeen aakhiro marka la gaaro waaba kasii dhala-yihiin ayaga waa ka daran yihin kooxdaas wadana way ka lumayaan waa qaybtii labaad labaas baa la noqonaya marka isaankii la fadilay adduunyada ha la fadilo dhulka noloshiis laakiin aakhiro waa la kala baxaya ciddii wanaag sameydana karaamay leedahay ciddii xumi sameyna ihaana waa la ihaanaysanaya ihaana ka dambaysa marka indhala-aan qof indhala oo la keeno isagoo indhala oo madaxa ku soconaya hada muhaan oo qof lasoo ihaanaystay weyaan madaxay ku soconaya sida qur-aanka ayadku inoo sheegi doona maarta ayagoo indhala baa keenaya madaxa ku soconaya maxaa yeelay madaxay ku socdeen adduunyada markay joogeen ilaah wuxuuna leeyahay yowma maalin u sheeg xusuusi nabi maxamed calayhi salatu slam insaankaa la fadilo la karaameeyey waxaad xusuusidaa yowma maalin nadcu aan u yeerayno kulla unaasin dadka dhammaantood waxaa loogu yeerayaa biimaamihim hogaamiyahoodii baa loogu yeerayaa imaamkoodii imaamka ay dabagelayaan waa kitaabkii acmaasha ay sameeyeen waxaa lagu kala soocmaya oo loo kala duwanaa oo kala gedisan yahay waa acmaashii weeyaan kitaabkii laga qoray oo maalinta qiyaama laga qoray kitaabkaas imaam baa la yidhaahdaa maxaa yeelay waa hage dadka kala saara maalintaas weeyaan wa kulla shayin axsaynaahu fii imaamin mubiin baa ilaha yidhi maarta shay kastaba kitaab baan ku qornay weeyaan aan ku koobnay baa leeyahy marka imaam buu noqonaya waxaa kaloo imaam noqonaya kitaabkii lasoo dejiyey kutubtii lasoo dejiyey iyaguna waa imaam weeyaan lagu dayanay waxaa imaam noqonaya nabigii lasoo diray laftigiisa maarta ciddii nabiga raacday oo rumaysay maalintaas nabigaabay dabagelayaan
ونبي وكيل عليه الصلاة والسلام وحيمان يا النبي والنبي ليس نبي معه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد حتى النبي لبن الله السعدان يا نبي على الله سبحانه وإيمانه عيد والبابا مارتو ولا كينا يا كتبتي لا يقرأي رسوشي وإيمانيا لو صدري عيد والبعد الراعي بيدبقل دون تمارت ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء مركوا إمام انتبه اسم دي ده تفاسير انت علماء السلف بيكسونات الإمام هو كتب لسودش يا أهل التوراة ويا أهل الزبور ويا أهل الإنجيل ويا أهل القرآن بللي يا لوجو يريا كل أمتك سنة نبي جود اللوجو يا أمة محمد يا أمة موسى تصبح لرنيا سو كلنا وحوي أنا عماشي السمايين كتاب كذي رسول كلنا وحوي ما كنت يعني أنتوا بقى إماموي قرآن كحديث ويفسرنا يوم مالين حسن ندعو أن يرين كل أناس دت كستبع يرين بإمامهم هجامي يهودي أن يرين سين غفل بكتابك أو سما أو وحو سماستي فمن أوتي قفكي لسيي كتابه وكتاب كيسي قرآن كيسي بيمينه مدتي سلجسي فأولئك كواسي يقرؤون ويقرؤون كتابهم كتاب كودي بيقرؤون وحين لو قريب بيقرؤون قفكو حويان أخرس كوا فرحت يكو أقرؤون مارت ها أقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي يا بولي مارت تذكر أبو تجي يا ولي ورنمي يوام سأقول لي سيسو مارت الأخير بروح آخر كتاب كي أركب وحي وياه يعني الدرجين كأو كان مارت خيرات كأو بوحي فرحت ما أنت ما أنت مارت قفكو فرحت لنا عيوين الدنيا ما الدنيا تسكول يرجع تو أوكي أنت ما تمتاز درجات كأنت ما لو ما ترى فرح صنطة ما حسابك ما تجينا فرحت الرنطة وما أنت أسويه قفكو ما أنت أسباس أيام مارت أنا وباستان أو مارت نحرس ولا ما أنت باب كده وكل جزء المشكلة رمبا أضاف يسمع كاس الكتاب كده ما أنت سي آخرنا يعني فرح سي ولا يظلمون لا نظلم من ما يو فتيل بلغ ظلم من ما فتيلة يعني ظلما فتيلا وين اللغة العربية فتيل كواحد اللي جيتمرات كحوب كيس جيتمرات تمرت لها لا مرت تمرت مركل لعنه أو لقعنه واحد صارن حوب يركو دهن بالله عربتها مركي عادة ولهد ما دام التمرت إلى رقم بشرين مركي وحي الربانين شيغان يعني فتيلكو حكمي وحيالكو شيغان نقيرك إيه فتيلك إيه مارتاي وحيالها كنت المامان بيكمده وعباروين كود وحي ربوت المامان وحي ربا اللوجه ذا مركي ولا يظلمون فتيلة وحي ربا لقدوا بالماي يا للمرت حوب تمرات بالله كده عبد الله بن عباس وحور فتيل اليدين لباقع عمو مركزات هذا قعدت مركزات هذا أو تفتل أصابعك فرها قاعد مارساس سوق تراضو حوغا يرو اسكا دير يريس اكسو بحال ليه فتيلك اللي هذا وكوفا سير مارت فتل الاصابع فرها اصابع كترات حوغا يرو حوي maxaa arkaysa wax yariis oo maarta isku gira ka soo baxay kaasba fatiilkana waa la yiraahdaa buu waxa doonto waxa ujeeda waxa loo jeeda wax aad u yar Allah ka dhigay laga dulmin maayo bal waa loo kordhinaya oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u barwaaqaynaya wala yudlamuna fatira laakiin dhinaca kale قفك إن ترى منهج إلى إسكان ترى ومن كان قفك هذا في هذه الدنيا ومن كان في هذه النعمة تبارك الله كريا نعمة أصل السيء ولا أقول يا قلد الله منهج كألا سود شيء قفك هذا أعمى من إن لا قفك القرآن كإسكان ترى قفك توحيد كإسكان ترى قفك أود إلى إسكان ترى قفك وحويا حقيقة أنا أركب كذا الدنيا عمل قلوب إيمانك يعقيدة اللواية إن الآن تربطها تسويا فهو أصدق في الآخرة آخرة مركز لقاره أعمى كي إن الآن بدن ويا ما أنت قيام وحبا لك كينا يا أصدق إن لا أيا لك كينا يا إله وحوليه سبحانه وتعالى أيضا ما دونت ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما أيضا أن لا أبا لك كينا يا مارت قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أيوة يا ربي ومع ذيك أنت ما أنت أنا لا وهري وحوان وأركي جري سوف سؤال الله صو صار ماي معنا لا أنت اللي يسوع صار بركاسو قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى آياتك إلهي منهج كان ناس كانت بركاسو ما أنت أنا لا بالو كيني ومن كان في هذه أعمى فهو أصدق في الآخرة آياتك ذنبه أعمى من الآن بدن ويا
وأضل من لمتان بدن سبيلا حق وضل وضل لجوه إنه يجد خير ولا قاضي يبرواقا يمجرنسا ما هو شرط مرت ما هو هي أضل سبيلا وضل كله متان بدن لأنه وضل كله تو الدنيا ده أنت نراشك وجود شرطه وحد عكرته إن تصحتها عكرس لكن آخر مركل الجار وضل كله طيب دي بصحتان بعد ما له مسيح كريس مرت ما أنت هذا حوالي عضونا صور الله بتوضع كريس ونفط إنك وجرت وضلت كلهم طينا دب صور الله بتوضع كريس لكن آخره مركل الجارو أضلوا سبيلا وين ودب له صور الله بكريس ما جرت مرت خلت كأي مستيق جفك قفك أسمي دب مسيح كريس سادرت بقويها أضلوا سبيلا وذكر أقول له 200 بدوية وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا إنسان كافر نمديس يجحديس وحا كمدا وينو سو شيغا إنسان إن لا أنتي سي وحسكو داي النبي جاي وحبا اسكو داي لفتيس إلى بيرتا قليا عليه الصلاة والسلام نبي جاي إن اللوميان يعني غفك الداعي لفتيس مركا دتكو خطر قليان إنه وصلوا بيرتا قالوا والنبي محمد عليه الصلاة والسلام محفوظة إلهي بقى إلهي سبحانه وتعالى لكن خطر بيكو قليان بقى ليه ما يقول علينا إلى وحوله وإن كادوا وحي بس جان أي بكل وادين بقى لا يفتنوك إن أديك في النيان عن الذي أي عن الدين الذي دينتي الذي كاسو أوحينا إليك أديك أنكو وحيوني إن كاف النيان بيسجان لتفتري صاد بين أبو رتو علينا دوش نذا غيره وحلقوه وحيده وحنا هين إن نقول بين أبو رتو وإذا وقت قاسي أي كف النيان أو وحكى نقول بين أبو رتو لاتخذوك وحي كاسا ميسانيا خليلا صاحبك عليك ولولا أن ثبتناك أنه إنك السقمي هدي سنترتين لقد كنت وحات سيغتي تركرنا اللي حتى إليهم أيغا شيئا وحقا أو يرن حقو دنا أدركتاتكو سيغتي إذا وقتك حداد اللي حن لهذا حقو يقول لي حن لهذا لأذقناك وحي نكون ديسين لهين ضعف الحياة نرشن عذاب كذو لله إيه وضعف الممات الجيرد عقاب كذو لله أيام كون ديسين لهين ثم دب لا تجد هلم ميسد لك هذا عين دوش نذا نصيرا عد مارتين وكا غرغارتو إيغا كاهي لي سهل ميسد نبي قابل لي عليه الصلاة والسلام وحي بس جنب بين كفرنا أيام دين تبقى كافرنا أيام محد مو ينسى إنك الداعية عادي ضبيروه على مركز صور عن وفكرة ده هي مالين نكان مارت دوغنين وحوق دولك وهيسن ضبيرها سوى قاضي يا مارت نبي معصوم بوهاي عليه الصلاة والسلام وحي جيبها لتشوي ضبيرها شبهات وشهوات مكي ماذا dadku maarta ka badan iyo ka badan ku hafiyaan dhinac ka soo galaan mujtamaca wuxuu ku noolaa maarta gaala ah oo gaala soo geynay marka nabigi bay inta u yimaadeen ay maartay asagii bay fikrad ka dhaadhacsiinayaan waxay ku leeyihiin horta waxa weeyaan ba soo iman doonaa hatta hal sano noo kaadina si hal sano maarta bal ilaahiyadana xoga yar amaan waxa dhici kara dadka kale aan u sheegno khayr ba iman doonaa hal sano maarta ilaahiyadana قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون هذا كلام حق أسكت درسنا بل أن سند إسلا عبد كان مارت أدعي كلام كذا تذكر إنكم مقلام القرآن وحين نبي كوي رادين قرآن كان أخرنا يسوع حوجي مجرنا يسا أن حوجي كبدل ير سيبوا ألاقي هاي مارت حوجي كبدل أسأل حياله قارك بدل مارت نبي وحياله كوي رادين عليه الصلاة والسلام أي كمدة هي فكرة دي النبي الله صلى الله عليه الصلاة والسلام القرآن كسعة أو أشياء إن يرادين القرآن كوحك بدل مارت إلهي بقى النبي جانا سوغي مرك عليه الصلاة والسلام داعية مرك النبي واسقنا أسأل يدك الدعاء ده اللي ودي جايه وإسلام كحنبار سن مقرنا يسا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي نبي أساس بمرك كل بالي المارت وحبا كم بدلك كريه وحيلي وحيدون براعيه لكن وحبا كان بدل مارت هذا القرح او سان كان بدل او انت كدر او حاجه كدايو وحيال بان بو شيغ الروايه قار علماء waxay wariyaan mufassiriintu maartay athariga waxay wariyaan inay reer banu xaniifa iyo nabiga inta u yimaadeen maartay waxyaalaha qaar ay weydiisteen ay waliba ku cilciliyeen waan ku rumayna waan ku raacayna laakiin aduguna saam noo sameey nabiga la gorgortameen alayhi salaatu wasalaam waxyaalaha qaarkood oo khatar ku ah maartay nabigu arinta ka walaacay maruu ka walaacay waxayga uu soo degay ayaadka ay yimaadeen وإلهي لي وإن كادوا وحي بس جان لا يفتنونك إنك في النهاية فدنا لهم عابي تنازل كدين تلاقى تنازله
ama maartay laga tago ama wax yar laga tago waxa weeyaan waxa weeyaan waa fitna weeyaan min acdam alfitan bay kamid fitnooyinka ugu waaweyn weeyaan marka waxay sigeenba ma aysan samayn laakiin waa ku dhawaadeen baa leeyahay maarta waa kaarteeyeen arrintaas wasiilooyin iyo qalab badan way u adeegsadeen nabigana inay maarta calayhi salaatu wasalaam ay ka leexiyaan ma garanaysaa xoogaa yar ilaahyadana ammaan iyo wixii lamid ah wain kaaduu waxay sigeen oo ay kaarteeyeen oo ka shaqeeyeen oo ay ku dhawaadeen la yaftinuunaka adiga inay ku fidneeyaan maaragtay ay ku fidneeyaan can aladii midkii awxaynaa ilayka adiga aanu kuu waxyoonay i'ti biqur'aanin gayri haada ay ku yidhahan maarta xoogaa qur-aankaani maarata mid asaga hay noo keen horta laba mid soo gal ama asaga naga dhaaf ama meelaha qaar ha laga bedelo i'ti biqur'aanin gayri haada ubadilhu bay yidhahan maarta marka laba mawliheed waa suurtagal asaga dhan in laka bedelo haddaad diido aayadaha qaarkood meeshaas ka bedel maarta marka waxyaalaha ku dadaaleen bay kamid tahay nabigeena calayhi salatu salaam isku dayeen maarta inay kala hadlaan wain kaaduu la yaftiruunaka can aladii awxaynaa ilayka litaftariya inaad abuuratid daraaddeeda calaynaa dushanada hayrahu ay hayra alwaxyi waxyigii waxaan ahayn inaad ugu been abuurato daraaddeeda oo maxaa dhici lahay waxaan maarta aanan sheegin haddaad iga sheegi lahayd waxaanan doonayn haddaad sheegi lahayd walow taqawala calayna bacd alaqaawiil la akhadnaa minhu bilyamiin uma laqatacnaa minhu lwatiin sida loo ciqaabo loo ciqaab caadi ama ah halbowlaha kow la kala siin lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu hadda wax yar aanan dhihin maar sheegi lahayn halbowlahan kow ku kala siin lahayn maarta maba noolaateenba daqiiqadba ma jirteenba ayadana maxaa leeyahay waidan markaas aada wax bedeshid latakhaduuka waxay kaa samaysan lahaayeen khaliilan saaxiib bay kaa dhiganayaan saaxiib lilaahi ah wadaay fiican saaxiib lilaahi ayay kaa dhigan lahaayeen maarta oo nabiga khuladiisa iyo wadaynimadiisa saaxiibnimadiisa waxa hortaagan maxay yihiin waa diinta iyo manhajka nabiga waa og yihiin laakiin asaga hadda waxa weyaan gaabka udhexeeya iyo meesha waxaan kala celinaya waa manhajka weeyaan haddii manhajku waxaa ka baxo meesha ka baxo iyo diintaad wadato meesha ka baxdo adiga waxa weyan laftiga ku kahan maayaane waxa weyan waa ku ramaan saaxiib bay kaa dhigan lahayn maarta awal maxamed amiin bay ku oran jireen islaamka ka hor maarta qur-aanka saas ba ilahi ugu sheegay subxaana wa tacaala fainahum laa yukadibuunak walakina alaalimiina biaayaati illahi yajxaduun waxa loo socdaa adiga ma ah waxay beenayaan adiga ma ah laakiin waa aayaadka wadid iyo diinta un bay ka cararayaan haddaad markaa diintu meesha ka baxdo idan latakhaduuka khaliila waxay kaa samaysan lahayaa saaxiib maarta gaalo badan waa saas weyaan gaalada waa nooca caadada hadday arkaan dad badan oo beerta la gala ta markaa waa soo dhawaysanaya kuwaasa ammaanaya boboonaya marta laakiin kooxda ugu khatarsan oo cadaawada weyn u keenaysa waa kooxda mabda-ooda haysta iyo diinta ma garanaysaa ama mabda iska run sheegay kuwaas ba maarta cadowgooda u ah idan latakhaduuka khaliila walowlaa an habatnaak haddaysan jirteen an habatnaaka inaan ku sugnay oo waddada xaqa ah iyo diinta iyo mabda aan kugu sugnay hubuut iyo istiqraar inaanu ku siinay haddaysan jirteen laqad kita tarkanu waxaad sigtay tarkanu inaad leexatid ilayhim ayaga shay-an wax yar qaliilan oo waliba le shay-anta lafteeda waa wax qaliilan oo yar shay-anta lafteeda nakirada waxay kutusaysaa wax yar xoogaa yar inaad xaggooda u leexato walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum nnaar muminiinta guud ahaan idoo la hadlayo ha u eelanina caqiidatan wa camalan wa ictiqaadan ila aladiina dalamuu kuwa dulmiye naftooda ha u leexanina xaggooda yani manhajka ka teginina waxdaanada ilaahay iyo cibaadada iyo tawxiidka iyo diinta iyo cibaadaad ha ka tegininoo ha u leexanina kuwa maarata gaalo xaggooda marka nabig waxaa leeyahay xoogaa yar inaad u leexataan ayaa sigtay baa leeyahay haddaanan ku sugnayn laakiin ma leexa nabigu waxaa weeyaan maxaa diiday inuu leexdo ilaahay sugitaankiisa cismada ilaahay subxaana wa tacaala rabbaa ilaaliyay walowlaa an habatnaaka laqad kita tarkanu ilayhim ayagana u leexato ayaa sigta shay-an wax qaliilan oo yar maarta aada u yar nabigeenu markaasu wuxuu ohan jiray allahuma laa takilnii ilaa nafsii tarfata cayn ilaahu nafteyda ha ii wakiilanin ilmiriqsina maarta nafteyda ma waardeyn karayo haddaan alla uusan sugin inuu xifdin maa subxaana wa tacaala ilaahu ilmiriqsina maarta nafteyda aniga ha ii wakiilina nafteyda xifdi buu ohanaya calayhi salaatu wasalaam markaa nabi maxamed inu cali u leeyay maxaad malaysa dadka kalena xagee joogna xagee anagu joognaa marka
خطر ويا حقيقة لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا عدة واحترت ومارت الداعية النقطة والدين تجارسيدا وابن آدم كأنفعضة وعدة إيد السجن ويا وعدة تثبيت كإله سيه وعدة إله سبحانه وتعالى مبدأ إسلام كما قاضه قف مارتي ضبيله تقول عن ريع برؤتي ده حبوين مكاني لكن عدة مارتي سجني ومبدأ إلهي كسجن وكوحدة سكوحدة رسالة إلهي قاضة سبحانه وتعالى إله أوسوي جل وعلا وكوحدة قاضة ويا وإذا إلى وحولي ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا وقت قاصو هداي دعضه إذا يعني وحلوجي إذا لو ركنت إليه ما ضل أقول لي حل هذا وحير مارت أقول لي حل هذا إذا وقت قاس لأذقناك وحن كل دنسين له ضعف الحياة نلاش لبلاب كذا نلاش عذاب كذا ولا بلاب يعني الدنيا لو عذاب كم عذاب من ضدك كله وقول الله بالله هنا عليك ضعف الحياة نلاش عذاب كذا ولا بلاب أصبح ينكو عذاب له iyo waxaan ku dhadhansiin lahayn wadicf alhaya wadicf almamat geerida cadaabkeeda oo laba laab adduunka cadaabkeeda ku laba laab lahayn adduunka aakhirana ku laba laab double baa loo dhigaa laba laab maxaa yeelay waa hogaamiye weeye hogaamiyaha iyo cid lagu dayanayo istiraaf kala siiyo ciqaab kala siiyo inuu ka bataa ciqaabka dadka kale mujtamac shacabka caadi inuu ka bato weeye laana waa qala qadar al-mas'uliyya asagu hogaankii buu wadaa maarta qofka intuu joogo iyo meeshuu taagan yahay bay ku xiran tahay ciqaabkiisa fil ciqaabay nabigana alayhi salatu wasalaam ka haweenkiisa lagu riyaa nisaa an-nabiy man yati minkunna bi fahishatin mubayyana yudaa'af laha al-'adab dhifayn hada dhacdeen haweenka xaaska rasuulku cadaabku waa ladin la laabaya si ajirka loogu la laabayo ay cadaabka ciqaabka loogu la laabayo maxaa yeelay waa tusaale weeye marka qofka hogaamiyaha ah lamid maahan dadka caadiga ah lamid maahan maxay haduu toosana dadka la toosaya dad baan la toosaya haduu lumana dad baan la halaagsamay kaliya isku simaan masmaa saadateeda ay wax mutaysan ciqaabka in loo laabo marka waxa gudubka uu leeyahay idan waqtiga la adaqnaaka wa nu kudansiinayna ضعف الحياة نرشع عقاب كده ولا لابا بوضعف الممات الجريد عقاب كده ولا لابا ثم الدبدات فكان عقابنا لا تجد هلي ميسد لك علينا دوش النظر يعني علينا دوش النظر مصيرا متكوهي ليه إنكم مسوق من كريس حي إلهي سبحانه وتعالى إلهي باكو إلى لنا يعد إلهي سبحانه وتعالى عقابك سورتها كثر ما يجي تمارت لأن المدد من الله سبحانه وتعالى أول بجرمتك يا سويتانك يا خيرك بإلهي بكيم حجز ما دام مددك حق إلهي كيم عدك لو أحباب ما أرتكوا ما قام كريس هذا هو عقابنا إلهي وحوي سيدنا سبحانه وتعالى ونصقه حق يا إيمانك نوصقه صلى الله على سيدنا ونبينا محمد